maantay magaalada Kismaayo waxaa laga daafuray shirka ilaalinta xeerka gargaarka Jubbaland. shirkan oo ahmiyad gaar u leh dawladda Jubbaland u lahaa ayaa la tilmaamayaa in loo baahan yahay in la dhaqan geliyo xeerkaasi oo dhawaan dawladdu ay ansixisay gaar ahaan baarlamaanka golaha wasiirada iyadoo ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda Jubbaland uu saxay xeerkaasi. haddaba xeerkan ayaa waxaa maanta loo soo bandhigay hay'adaha gargaarka ka shaqeeya ee dibbixiyaasha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland ku sugan. shirkaasi waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan Jubbaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee madax dhaqameedyada bulshada rayidka iyo madax ka socotay dibbixiyaasha gaar ahaan kuwa gargaarka ka qayb qaata oo ugu horeysay hay'adda cunnada adduunka ee WFP madax ka socotay ay ka qayb galeen. shirkaasi hadallo dhinacyo badan taabanayay ayaa mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay halkaasi ay ka jeediyeen. ugu horreyn shirka waxaa daafuray oo ka hadlay waxyaabaha uu markaas shirkaasi daaran yahayna meelo badan markaasi taabtay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee Jubbaland wasiir Cabdiraxmaan Dhiriq waxaana markaasi uu fariin adag u diray madaxda dawladda federaalka waxaana hadaladiisa kamid ahaa sida horeyba loo sheegay nuulayaal xafladda kulankan laba point uu ka kooban yahay laba arrimood midka koobaad oo ah soo bandhigidda iyo launch garaynta xeerka ilaalinta gargaarka oo dawladda Jubbaland ay diyaarisay wasaaradda gargaarku ay diyaarisay in la wadaago qodob koowaad bay ahayd qodobka labaadna inaan ka hadalno abaarta iyo xogteeda inaan wadaagno labada qodob bay ka koobnayd waxa laga yaabaa in la isweydiiyo maxaa la isugu keenay oo loo kala qaado way mid maalin looga dhigi waayay waxaan u keenay baa waxay tahay inaanu dadka u cadeyno saaxiibada u sheegno hay'adaha ah oo danaynaya xeerkan iyo cid walba inaan ogeysiino maadaama aan leenahay dadkii way baahan yihiin ha loo gurmado ha loo gargaaro waxaa ka dawlad ahaan dawladda Jubbaland dhabnaga ah in gargaarka iyo deeqda loogu talagalay dadka reer Jubbaland ay naga go'an tahay ka wasaarad ahaan ka dawlad ahaan dhammaan laamaheeda in deeqdaasi iyo gargaarkaasi sidii loogu talagalay loo isticmaalo dadkii loogu talagalay in ay gaadho caqabado kasta oo jiray ama jiri kara ama la dareemayayna xeerkaasi insha Allah tacaala aan maanta soo bandhignay oo soo dhameystirmay oo madaxweynuhu saxay oo dhammaan soo maray laamihii dawladda ee heer wasiiro iyo heer baarlamaan madaxweynuhuna saxay maanta inaan ku soo gunaanadno inaanu inii sheegno xeerka in la sameeyay laynana wadaagi doono insha Allah haddii Alla idmo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dawladda Jubbaland oo ka hadlayay shirkii maantay ay qabatay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa sheegay in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah maadaama xeerkan uu wax badan ilaalinayo isla mar ahaantaana loo baahan yahay in la gaarsiiyo gargaarka dadkii u baahnaa wasiir Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta oo arrimahaasi ka hadlayay iyo shirka xeerka ilaalinta gargaarka ayaa waxa uu yiri xildhibaanada xubnaha kale dawladda marti sharafta inooga socota hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ee goobjooga ah ururada bulshada odayaasheena dhaqanka dhalinyarada haweenka warbaahinta iyo marti sharafta ku casuuman munaasabadatan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan runtii munaasabadan muhiimka ah oo kulmisay laba shay oo lafdhabar u ah jiritaankeenna iyo dawladnimadeenna inaan ka soo qayb galno aad bay maanta farxad inoogu tahay isku dubaridka arrimaha abaaraha iyo waxaan la yidhaahdo Jubbaland Aid Protection ama sharciga badbaadinayo deeqaha ama ka hortagga leexshada deeqaha waa laba shay oo muhiim ah lafdhabarna u ah dawladnimada waxaan rabaa inaan soo koobo labada qodobna aan ka dhaxbixin arinta abaaraha waa la wada soconay waxaana nagu filan warbixintii koobnayd ee ay bixisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayadoo garabka helaysa hay'adda qaramada midoobay ee OCHA oo ku xusnaa caqabadaha jira marxaladda ay marayso abaaraha duruufaha hadda aan ku jirno qataraha nagu soo aadan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo
hogaamiyihii hore South Africa Nelson Mandela markuu ka hadlay hogaaminta ayaa wuxuu yiri it is better to lead from behind and to put others in front when we celebrate a victory and to put yourself in front when there is a danger. micnaheedu ay tahay hogaamiyuhu marka ay marxalad farxadeed jirto oo la dabaaldegayo oo barwaaqo jirto waa inuu dadku gadaalka hogaamiyaa dadku ay hor socdaan si ayaga farxaddu uga hormaraan markay caqabad iyo dhibaato iyo duruufo adag jiraanna hogaamiyuhu waa kan dadka isku horgudbo dadku hor socdo caqabaduna asaga uu isaga dhigo dadka madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan guddigii uu xalay magacaabay ee golaha wasiirada ka koobnaa ay hogaaminayso wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxay ku tusaysaa go'aanka ay dowladdu qaadatay duruufaha adag ee la wajahayna inaan diyaar u nahay inaan dadkeena la wadaagno gadaal iska marino duruufahan anaga ay nagu dhacaan horta taas inaan qabsataan aan rabnaa in message-ka dowladdu uu yahay